السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرمهنا ومانتا كنتسنا يسيد الله فورمات قرأي هارد درايف أم هارد ديسك حيما نسمى كمبيوتر رايت كليك مانج أيا دورنيسا مركات فورمات قرأنيس هارد درايف هل كانوا حكا دورنيسا ديسك مانجمنت كدب حاركي دونتا هارد درايف هذا كمبيوتر كاكوبيا روح حقا وجيد وحر اوكي marka intaan ku muuqato waa inta partition hard disk computerka uu ka kooban yahay midkan waa local disk C waa mid Windows uu ku jiro C midkan waa data D midkaas waa E kan hoosna waa external okay marka waxaan rabaa inaan format gareeyo midkan E hard drive E marka inaan iska format gareeyo midkaas sababta waa uu buux marka format gareynaysid waxa sameynaysaa sidan aan hada sameyn doona marka hada intaas ayaa freeka okay hada waxaan soo fiirinayaa inta uu ka kooban yahay hard drive ka inta faaruq ah inta uu isticmaalay okay ma computer aan soo furo kadib waxaan imaanayaa midkan local disk igi right click properties aan ku dhufanayaa waxa aragtaa in uu faaruq ahayn oo uu buuxo waa buuxa markii uu bulug yahay intaan dhan wax yar ka banaan waxba wax ahayn usage space intaas waa alaas dhan waa la isticmaalay free space waa pinkigan waxba ka banaan wax yar wax ina ka banaan okay aan ka sano marka aan ku noqono computer management desk management marka format gareynayso waxa sameynaysaa hard drive ka dooranaysaa right click ayaa ku dhufanaysaa C hub format gareynaysaa waa window anta marka right click E kadib waxaa ku dhufanaysaa format halkan ayaa ku soo baxayso halkan new volume oo dhaafe inta perform quick inta enable check mark ayaa saaraysaa labadaas meel ahay loogin halkaas default ku dhaaf waxba ka bedelin intaas kadib K ayaa ku dhufanaya digniintan aqsana wuxuu ku dhaaf computer hard drive ku altartira wax data ku jiro doonto wax dhan way lumi doonaan qanacsan tahay okay aad dhufanayha waxa daqiiqad dhamaan ayuu format gareysmaa isla markii waxa arki doontaa new volume waa ka sida ku muuqata waa la format garey hard diskiga hada new volume waa mid ka hada usba partition ka aan format gareynay mid ka hore asoo fiirnayna isagana data ku jirto iyo inta free space ah computer soo furaya new volume waa midkii hadaan format garanay right click properties waa kan sida ku muuqata waa faaruq waxba kuma jiraan sidaas ku muuqata okay marka magacaan u baxsanaya hard drive name waxaan qornayaa armahena okay sidaas ayaa la format gareeyaa hard drive waxaan ku muuqdo waa cabirkooda ama size-ka okay waxaan idin rajaynaa khayr iyo caafimaad waxa fahmi weysid waa isoo weydiin kartaa aad ay u fududahay okay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bar ama baro